السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود هذا صاحب قيمة بدن كحران كنالك ابن أبو بكر وحاتهين دتك كل سنة هاي كنالك ابن أبو بكر وما لنكلا يوم قال حساب بدن مررك غار دد كافك كمنان ملا أي كسين كران فرحت آذان هلي كرين كودنا عاجا جوجا هذا بوحان كوسو قد بنيا ولا الكيجيو أما ولا شيء ذي سديد غضب waxaan filayaa inaad ka boodin doonto insha Allah mida koowaad marnaba been ma noqoto run qalad ma noqdo sax xumaan ma noqoto wanaag xitaa hadii ay aqbalaan ama rumaystaan dad badan mida labaad yeysan ku galin kalsooni saa'id ah goortii qof ku yiraahdo waan ku jeclahay su'aasha saxda ah waxa weeye ilaa iyo goormee sababtoo ah sida xiliyadu sanadka isku bedbedelaan ayay dadkuna isku bedelaan mida saddexaad goortii xumaan lagu sameeyo dadka daciifka ah way argoostaan dadka xoogan way afiyaan dadka aqliga badan way hilmaamaan mida afaraad qofna ma ogo halganka aad ku jirto qofna ma ogo murugadaada qofna ma ogo xanuunkaaga laakiin waxay dhamaan ogaadaan oo si wadaan hadii aad samayso hal qalad oo qura mida shanaad dadka qalbiga fiican wax badan bay dadka caawiyaan wax badan bay bixiyaan si dhab ayay wax u jeclaadaan haddana waxaa soo gaara waxyaalo ugu badan waxayna awoodaan in ay ku qariyaan kun dareen oo murugo ah hal dhool cadeyn oo farxad ah mida lixaad ku qanacsano waxaad haysato hana ka fikirin waxa aadan haysan waxa aad haysato waxa ay ka timid nimcooyinka Alle wax aadan haysan oo ka maqan waxa ay ku timid wax aadan haysan waxa ay ku timid xikmadda Alle mida toddobaad mararka qaar dad ka fog kumanaan meel ayay ku siin karaan farxad aadan ka heli karin kuwa dhinacaaga jooga mida sideedaad ha u noqon adoon shaqadaada ha kulmin waqtigaaga wax aan dan kugu jirin ha ku dayacin daryeelka naftaada madadaalo nimco la'aan ah shakhsi ama shaqo aan horumar ku gaarsiinaynin waa walaalkiina ibn Abu Bakar oo khayr idin la doonayo sidaas iyo amaan Allah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.